السلام عليكم هبين وناكسن مدان ومنارة مسجدك انت بدن دلينيرada zamankan waxa badan inay guriga ku tukadaan in qof dhalinyaro xoog leh laga yaabo masjidka 100 mitir inuu u jiro laakiin guriga uu ku tukado saddex arrimood darteed maanta ka dib guriga ku tukanin marka koobaad oo ah xilligii rasuulka saxaabada sallallahu alayhi wasallam يعني قف الأوجه إنه منافق يهي الأوجه إنه منافق يكليه أيام مسجد كم غنان جري صلاة مرك لجاره لما عندك مسجد يكون تكنجرين صلاة جماعة وح أنكسر دبدع جري أما أنا صاح هذه رجرين قف منافقة مداس ومدى كوبات مدى لباد مسجد كدتك عمرها يوا إلهي حكوت المامي إنما يعمر مساجد الله مساجد وحا عمر دد إلهي آخر الرمي marka dadkaas masjidka soo buuxiyay ee tukanayo hadii aad ka dib dhacdo yani dib isu fiiri sababtoo afan masjidka waxa buuxiyo cindi ilaahi aakhir rumaysay midda saddexaad waa laga yaabaa qof hadda codkan dhageysanayo ama muuqaalkan arkayo in uu arrinkan kale ku dhacay maalin dhow waxaan la kulmay nin ka imaaday qurbaha wuxuu yiri yani inaad masjid maqasho inaad masjid aragto ama aadaan aad maqasho xilliyada qaar marka qurbaha la joogo kale waxaad ku bedelan yani waxaad hanti haysato sida masaajid ayna u jirin ama laga yaabo qofka yani inuu ku nool gobol dhan oo hal masjid ku oolin masjidkan 100 mitir ku jiro ee xaafad walba ku yaalaad arkayso dad baa maanta u arko nimcada ugu weyn ee macquulka tahay in la kulmaan adduunkan dad ayaa jiro yani ganacsigoodii hantidoodii waxyaabo ay qurbaha ka sameeyeen oga soo tagay kaliya in masjid iyo Allahu akbar salaad ayna maqlaynin nimcadan aad haysato marka waa muhiim saddexdaas qodob awgeed yani masjidka maanta ka dambe ha ka dib dhicin عفوا صلاة جماعة ha ka dib dhicin عمر إنشار السلام عليكم